الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. قال المؤلف رحمه الله ودليل الصالحين إن لعابد جرنا وحد دليلها قوله تعالى هذا الكإلهي وهؤلاء كقواسي الذين قواسوا يدعون قالوا ويعابد أيان يبتقون وحي ضلبايان إلى ربهم بدل الحق سيوحي أهادين الوسيلة قربا يدوان الله يودوادان أيهم كودي أقرب دول أي سير هذين دوان تعالى سبحانه وتعالى ويرجون وحي رجينا يان رحمته ألنا حريستي سيجندي سيرجينا يان ويربان ويخافون وحي كبقايان عذابه عذاب كيسي كبقايان. وعن كتب الكتاب فيها القواعد الأربع وللإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه النجدي. كتابنا أفر قاعدة ككوبنا قاعدة سدحات وقصة سنوات إن ضدك النبي عليه الصلاة والسلام الله صدري أي هاي إن ضدك للدون وسكوك خلاف سنوحة يعبد أيان ونوحة يعبد أيان أنكم من سنين يا هايين وقلب أي عبد إيدي صالحين يا أنبياء إلهي يا ملائك إلهي iyo ahjaar iyo geedo inta badan isla caabudi jireen. Nabiguna uu kala saaran alayhi salatu wasalaam oo uu sadeeyay wixii wax wanaagsan caabudana hal iska daayo ama hal soo dhaweeyo wixii wax xun ama geed caabudana hal la dagaalamo uu sadeeyay. Waxyaabo markuu saabsanaa ambiyada Ilaahay la caabudi jiray ama maaragtay qorraxda in la caabudi jiray iyo bisha in la caabudi jiray iyo waxyaabahaas waa soo marnay. Marka sheekhu wuxuu leeyahay daliil saalixiina dadka saalixiinta oo wanaagsan in qaarkood la caabudi jireen waxa uu daliilo qowluhu ta'ala hadalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaquna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba surah Isra. Ilaahay wuxuu sheegay dadka gaalada wixii ay caabudayeen ama dadka ay caabudayeen qaar kamiduhu inay hayeen dad saalixiin ah والله دواده سبحانه وتعالى دوانت الله كتر تمام ايضا علماء قرأ وحي هذا وحي كسو دلتي دد عابد جري نبي عيسى عليه الصلاه والسلام يهوديس مريم يا عزير الى ما عليه اولئك قواس الذين قواس يدعون اي عابد يا مشركين ونبي عيسى يا هويدي يا عزير يدعون وحي عابد يا ايوه أولئك الذين قواسوا يدعون يعبدون يا مشركين تدل يبتغون وحي ضلبا يا ويهدين إلى ربهم ربك الحق سيوحدون يا الوسيلة دوان يقابل دوالها هي سيألوه دوالها هي أيهم وكود دالها هي أيها الضوء إلهي أيهم أقرب ولما وحي فتر تما يا دوان تألا أيهم أقرب كودي ألا دوالها أيه كسي ترتمع يا ونوم الباهو وقلو الباهو حسنادا قلوك ألا هو دوال marka la cibaado ma cibaado mudan wada dooma Ilaahay wada saalixiina weerjuna waxayna rajeynayaan haday Allah ta'aan rahmatuhu naxariista Allah ay rajeynayaan jannada Allah rabaan way qaafuna waxay ka baqayaan haday Allah caasiyaan cadaabahu wala cadaabkiisa ka baqayaan marka dad saalixiina oo Allah ka cabsada way adoomadaas la caabudahu cibaadada ma budna waxa kale culimada qaar ay yiraahdaan waxay ku soo degtay ama ka waramay aayadani dad mushrikiin ah oo qolo jinniga kamida caabudi jirtay dad mushrikiin oo qolo jinniga kamida caabudi jirtay qoladii jinniga kamida ahayd ayaa dacwada diin xaq ah oo ay gaartay dacwada tawxiid markaasay dacwadii qaateen markaasay tawxiidsadeen markaasay waxay noqdeen dad mustaqiimiin ah mushrikiintii insiga ahayd oo jinnigan caabudayana warka ma hayaan jinniga caabudi jireen inay muslimiin markaasay waxay iska taagan yihiin cibaadadii ay jinniga caabudi jireen wali jinniga caabudayeen mar hore muslimiin oo ahlu tawxiid إلهي ملك سبحانه وتعالى وحليه أولئك قواسي الذين قواسوا يدعون مشركين يعبدون أيان ويبري أيان وجنة أسكمدا يبتقون وحي ضلبا أيان جنة إلى ربهم رب والحق سي الوسيلة دوانتي الله دوالها أيان ضلبا أيان سي الله دوالها أيان كددالها دوان الله هذين أيان وحي الله دوالها أيان وأهل توحيد وأما قول أما فعلا أيهم أقرب وكتر تمايا دوانت الله أيهم أقرب كودي أن دوالها هي كتر تمايا مدول باوحر وانكلم الله ودواله ويرجون وحي رجينا يا الجن قاسي يا الضمراس إلهي رحمته ونحريست عليه رجينا يا وجنة ويخافون وحي كبقايا عذابه وعذاب كيسي كبقايا
sidii la rabo lagu fasiro ayada ama rasuulkii raba loo yeelay waxay ka sheekeynay dad saalixiin ah oo suuban oo dad mushrikiin ay caabudeen saalixiintaasuna ay leeyihiin dad alla cibaadadiisa ku dadaala oo raxmadda alla rajayna oo cadaabka alla ka baqa oo muuminiina oo mar walba ku dadaala si alla ugu dhawaanayeen kuna tartamaya si alla ugu kala dhawaanayeen subhanahu wa ta'ala ayaa dad iska caabudaya waa saalixiin dadkan la caabudayo waxa caabudana waa mushrikiin in saalixiin caabudaan dadku caabudeenna waxba uma tarto shirkiga kufriga ka badbaadiyay ayuhum aqrabu mar waxa leeyahay wax ku tartanayeen cibaadada alle iyo dhawaanta alle marka ayuhum aqrabu koodi alle u soo dhawaalahay ku tartanayeen marna waxa laga bedelaa ulaayka ladina yad'una yattaquna dawa ku jiro oo faa'ilka oo jamaacaha oo waxa leeyahay ayuhum koodi ayaa dalbaya wasiilada dhawaanta alle aqrabu allow dhawaa midkooda adoomada saalixiinta alle u sii dhow ayaa wuxuu dalbaa raadina dhawaan alle oo u dhawaado maxaad u maraynay marka kii ka hooseeyo taas la wada kii alle u dhawaado dhawaan alle dalba midka ka hooseeyo maxaad u maraynay warkiisda waa adoon Allah subhanahu wa ta'ala ee adoomadan ilaahay iyo saalixiinta hal qof oo gaari kara adoonnimo darajatul adoonnimo iyo darajatul ubudiyya inuu ka gudbo oo darajada ilaahay inuu gaaro hal ahad gaari kara oo mid marka wasiiladuna waa dhawaan alla loo dhawaado waa cibaadooyinka iyo taacada alla loogu dhawaado subhanahu wa ta'ala wasiilada la sheegay taas waa macnaheedu ma aha wasiiladu in cibaadada ilaahay dadka la siiyo alla subhanahu wa ta'ala si alla loogu dhawaado wasiiladaasuna waa wasiila shirkiya in dhawaanta alla markii rabo in alla loogu dhawaado ama la yiraahdo waxaan ugu dhawaaynaa ilaahay qeyrkiina cibaadada wax ka siino ama saalixa ama nabiga wasiiladii shirkiyada ahayd taas mid xaraam ah quraanku ma ogolo quraanku waa nahiyay ilaahina ma ogolo subhanahu wa ta'ala nabiguna ma ogolo waana soo marnay waxyaabo ku saabsan nimankii mushrikiinta ah iyo carbeed ilaahay qeyrkii markay caabudayeen sababta ay u caabudayeen iyo danta ay kala hayeen waxay ahayd wasiilada shirkiyada ahayd waxay rabeen cibaadadaas alla qeyrkii ay caabudayeen inay alla ugu dhawaadaan subhanahu wa ta'ala قالنا كن نقدم الله سبحانه وتعالى وكجالسين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إليه سبحانه وتعالى ويعبدون أيان وحن الله وحنا كذب كريم وحنا مترك كريم حين ليهين ذات كان عبدنا وقيامه نور الدين أيان سوق إله وحده سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وصامنا والذين اتخذوا سمست من دونه على كفر أولياء سمست أوليو وحياب عبادة الله إلا السيان ما نعبدهم حال إليه ما نعبدهم ما عبدهم أصنام تاني يدد كان أولياء إلهي جيدها نوحي لمذا إلا ليقربونا إني نودويان إلى الله الحق ذلفاء دوين نودويان مهان مركا إنا ألا غيرك عبدو أما حق إلهي أولها أدعدك رسيدو أيضا دانتا أبو أيتا إنا ألا أولواتو مشركات كنا غير وشرك وصيلة شركية أيها لذلك وصيرة السحدة أو إله سبحانه وتعالى ما شاء الله شيئا وإن الله لو توحي إلهي أبرا لك كاها وعبادة الله يكون كتاي تاسع وصيرة شرعية لكن الله لو أنت تكسرها وحي الربح اللي قم عاري وقصة إلهي وحي أولها يحقها إن عدك للرزية الشرك واي وحارت لكم مقعاب أما توصل لكم مقعاب أما تبرك لكم مقعاب أما فلاني وحارت لكم مقعاب حق إلهي لا أضر عدك له هو عيد الشرك تكون عظم حق إلهي وسكلها هذا عدك راسي وشركة كلها ألا نقول وامره سبحانه وتعالى هذا رب توحيدكم مقعود توحيدنا هو ما يوحاس موضوع مكة وحمد بدل خياره ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون أولئك قواس الذين قواس يدعون يعبدون المشركين يبتغون وحي ضلبين إلى ربهم الوسيلة ضلبين دواني ألا وسيلة له دوالها يعني في هذايا يعني وسيلة قربضي دوانتي ألا دوالها يعني في هذايا أيهم أيها الذين أقربوا ألا ولوا محمد كفوس أم علينا الضم الله واي وصالحينه ويرجون وحي رجينا يا رحمته ورحمة الله ويخافون وحي كبقى عذابه أيضا ما كان دليل عبدته هي ضدكي قال هذا هي النبي حلي سجود عليه الصلاة والسلام قال كل صالحين عبود كريم ودليل الأحجار ولا أشجار أحجار يدكحان يجيد إن لعبود كريم وحاول دليل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى آيكم الذكر وله الأنثى
أفرأيتم ملكورهم اللات صنمك اللات يوال عزى متك عزى يو مناة الثالثة يمناتي سدحات الأخرى كلا بل كورهم أيضا تيك لا كورهم ومناتها محي قبكرا محي قلان أي إذن دي بكران محي إذن قبكرا أي عبادة كليه ساسوي هذا اللي غيت له عابدين هذا إله عبادي سحوة سيدين وحام لكن حانت يجيلها سكوتشيرا أصنامت مركز سدح ذا وأصنامت حلقة العبد يكون ويناوى لاتا وأصنام مجعيس وحون كسم يسنا نجح لقرائيوها أو لشقشق لي أو لحرحر لي يقولون له بدون بيصير لو حكي لي هذول ولا تحية واحد معنا مية لك ويعني ذاتك المسؤول يذكروا إن ذاتك عابدان يقولوا يا لا بدون بيصير يقولوا هنا يقولوا عادي لا جماعة هنا وحلا قد يقولوا ده يلا حلا قد جاي وسيد الكعبة لو دري ملبح بناها وضدكوا أي كوكانا حولها الله لقد ضوضاء وحولها أي كانا أو ضدكوا أي كعابدان ولا سبي ضدك ورقبة ولا جوجا وكوافي ذا ودرك أوجريا وعيد عطر له أما برافون لك وأقشبا وضدك أوشة كي إني كرامة أو حسنا كرامة ليه هاي عليه اللي كان أنا ضدك كاب بضوضة ندر كي وحاس كورقبة ماشي أسكوح الناس تنوى أولها وقادمينها وأوشة كي نوى أولها قال قبيل كي ثقيفة أنا عابد جدا قول لي تري طائف ماشي ليه طائف يقول لي سنة كان لا تلج مرقوا قصة اسمها نجحوا قصة اسمها عزونا اسمها سنة لكن اسمه هو جيد لقرأي وها أما جيد عادي وها مالكيال قول لي تري نخلة ما اللي يرهد أو مكة طائف الحيدة نخلة ولا إلى مكة ما النخلة اللي إلى مكة طائف ولا حيد أيوة كل جيل أساسه كروحها جيد هريري اسمه كيالو أسقط ماله أو مريا يوحلو به سيدو كلا سدنا له وضد ماركتي أخذ ما ياو إلى جوجان أو كأب عنا يستان ضد كانوا حيسية سيدو كلا كانوا حقوق يوجدونا waxaa joogo dhaxtii jiray shayaadiin dadka la hadla oo qofku markii uu dhawaado oo yiraahdo oo la hadla oo xaswaansiyeena yiraahdo ayaa ku dhex jiray geedka manaatarasna sidoo kale waa geed waxa dhagax qoran oo Makay Madiina inta u dhaxayda yaala Aws iyo Khasraj iyo ragaasana caabudi jiray isagana ka soo xarma jiray سنام واي مركا دمانتو أرنا وادقحان أرنا واجيدو واجي دمان النبي عليه الصلاة والسلام كم مقالة مكة قبصدي ومقالة مكة فرطي نبي قدره وكلا دري سودوية سنامتا سيهدي ذاتك مسلمين تاعي حوغيستين إن أسنام ألا لا عابلو يحرد كالي سناتا سحما مغير من شعبا يا سفيان يا وحا الله دري لا تالله دري سودوية ليدي يعيدنا يوتان وسود شيء الزنا وحى الله دري نكر إلى خالد من الوليد وسود شيء سوون جيت كنا وسود وحي ماشي على وسود عقد فمش مركو النبي يقول صلى الله عليه وسلم وحى ليري محارتي وحبا ما أنا أعرفه جيت كنا وسود ماشي نوى كل دري شدتك حبا ما أنا أعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولي ما أنا قام وحبا لا بي سودني وحى ماشي على ما جيت كسودني أما عزاز سودني waa laabtay markii uu dambe u laabtay oo arkeen nimankii qaraabo jiray sanamka markay arkeen Khalid oo soo socda way ka carareen markaas ay waxay yiraahdeen istifaa cuzu iska dhici wala soo socdaa waagid meel ku yaala ayaan ziina wax iska qaban karo wax iska dhici karo shaytaanadii la caabudi jiray oo dadka la hadli jirtay oo qaawan oo madow oo tima shacshacaan oo tima firirsan oo ciid isku buubaha ka soo baxday meeshii Khalid seefo uu teesay madaxda uu siiyay كذبنا وصلى النبي عليه الصلاة والسلام نبي تلك العزة عزه العدو تري ودتك يشيء تري جيت كان وحام معاينه وحي هذا تري ودتك الله خطاب تري هاي العزة هاي شيطان ده هاي شيطان ده ولا سود
manaatana cali ibn abi taalib uu diray nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu soo gudbiyay ayada marka asnaamtan maxalu shaahidka waa maxay sheekhu oo u keenay asnaamtan sheegooda asnaamtan waxay ka koobnaayeen geedo iyo dhagxaan marka geeda iyo dhagxaanna dadku way caabudi jireen awliya ilaahayna way caabudi jireen saalixiin saan soo marnaba ambiya ilaahayna waa caabudi jireen saan soo marnay malaa'ig ilaahayna waa caabudi jireen dhammaanna kufaar iyo gaali ku ahaayeen ee dad la yiri dad la kala soocay mahayn dadku oo lama kala soocin nabigu kala ma soocin calayhi salaatu wasalaam oo ma dhihin inta ambiyada ilaahay iyo saalixiinta caabudana waa khiyaarana soo dhaweeyo inta caabudee axjaarta iyo geedahana halala dirra nabigu ma dhihin inay geeda caabudi jireen waxyaabaha u daliilka waxaa kaloo ka mid ah xadiidku abi waaqid allaythi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kharajnaa maca anabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga magaciisa maxamed ilaa xunaynaan aadlay walxaal naxnu xudathaau cahdin bikufrin walxaal naxnu anaguna aannahay xudathaau cahdin bikufrin kuwa gaalnima ku dhow walilmushrikiina mushrikiintana waxaa u sugnaatay sidratun geedgobeed oo yackufuuna cindahaa agteeda ay ku ictikaafaan oo cabbaar ay joogaan oo barakeystaan wayamuutuuna ay sugtaan bihaa geedkaba aslixatahum hubkooda iyo seefahooda ay sugtaan yuqaalu lahaa geedkaas waxaa la dhihi jiray daatu anwaadin ayaa la dhihi jiray geedkii la sura jiray seefaha la sura jiray wa mararnaa waxaan soo marnay bisidratin geedgobeedaan soo marnay waqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ijcal lanaa daatu anwaad noo yeel iyo geed aan geedaha suranno aan seefaha suranno kamaa lahum daatu anwaadin say daatu anwaad u leeyihiin faqaala sala allahu calay wasalama nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam intaas mustaqbal ku gaadhay laakiin xadiiska weli waxbaa kasii dhiman faqaala rasuulullahi sala allahu calay wasalam rasuulka alle wuxuu yihi markii taasu dhacday allahu akbar inaha sunan waa sunan waa wadooyinkii dadkii hore qultum waxaad tidhahdeen waladii nafsii biyadihi allihii naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxaad tidhaahdeen kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa reer banuu israa'iil sida ay muuse ku dhaheen oo kale ayaad tidhaahdeen oo ah ijcal lanaa ilaahan ilaah noo yeel kamaa lahum aalihatun sida dadkaanu ay ilaahay u leeyihiin qaala wuxuu yihi nabi muuse inakum qowmun tajhaluuna waxaad tihiin qowm juhaala ayaa tihiin waxba ka warqabin xadiiskan waa xadiis abi waaqid allaythi waa xadiis saxiixa oo culamada qaar ay saxiixiyaan sida imaam alalbani raxmatullah calayhi oo kale wuxuu ka sheekeynaa in nabigu markuu aaday xunayn isagay saxaabadiisa xunayn aadeen ku duuleen ay sii mareen geed mushrikiintu ay geedaha sula jireen ee seefaha sula jireen markaasay saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen oo markaas mar dhowaan soo islaamay oo wax badan oo tawxiidka ka mida aan ka warqabin oo waxyaabana ka warqaba mushrikiintu ay samayn jireen oo mushrikiintu barakaysan jireen ayaa waxay ku soo hadal qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii wax lamida in loo sameeyo oo geed ay barakeystaan loo sameeyo mushrikiinta waxay ahayn kuwa sameeya markay duuli tagaan geedaha geed ka mid ah oo ay baraka ka aaminsan yihiin ayay waxay samaynaan waa imaanayaan waa ku aaga ictikaafayaan waqti koobanay geedka ag joogayaan danta ay kaleeyihiin waxa waaye aad geedka barakaysataan oo duulaankiina barakoobo waayo oo colka ilaahay idiin jibsho idinkana ilaahay idin duuleeyo ayaanay cabaaray joogaan waqtiyada ka mida ay waxay u fadhinayaan geedkaas barakadiisa iyo barakaysigiisa waxay seefo wataanna geedkay suraayaan seeftaasna waxay aaminsan yihiin inay hadhowdii seefaha ka dagaalami ogtahay geedka la suray kadibna dantooday qabsaayaan marka saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood dhowaan soo islaamay markii maka la furtay kadib baa xunayn la aaday dad badanaa marka islaamka soo galay oo hoggaansamay dadkii markaas badnaayo saas yeelay wax ka mid ah oo aan arrintan ka warqabin xumaanteeda ayaa waxay yidhahdeen nabi ilaahayo waxaan rabnaa annagana inaan noo samaydo geed aan seefaha suranno oo aan barakaysanno saasaan rabna geed aan seefaha suranno oo aan barakaysanno nabigu marka calayhi salaatu wasalaam arrintaas waa uu diido wuxuu yidhi arrintan waxay ka dhigan tahay hadalkii qoladii nabi muuse reer banu israa'iil markii ilaahay ubadda ka badbaadshay oo ay soo mareen qola asnaam caabude ayay waxay yidhaahdeen nabi muuse waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha nabi muusow ilaah aan caabudno sanaman noo samay sida kuwaan asnaamay u leeyihiin waa reer banu israa'iil waa dadkii muslimiinta ahaa waa dadkii fircoon iyo dhibkiisa laga badbaadiyey haddana sanamay leeyihiin ilaahay aan maaragtay la caabudna noo samay qaala marka ilahay wuxuu yidhi kuwaas inakum qowmun tajhaluuna waxaad tihin qowm juhaal ah nabi muuse ku dhaha inakum adinku waxaad tihin reer banu israa'iilow
قوم تجهلون قوم جهال آياتين وحن جهل يدين جينا إلهي كلمة سواجبتا إن العابد إلهي إلا العابدنا مبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه ذكر سديو ثلاثين جهل يدين جينا إن ترهدان اجعل لنا ذات أنواط جهل يدين جينا مبرنا رجيت إلا بركة يستو وبركة جونية لقاء من مبرنا وحديث أبي واقد الليثي قال وحد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنما جمع عيسى بحنا إلى حنين آدم وما يجد لي والحال نحن أنه الآن حدثاء عهد بكفر وقال لما كو عصبانا قال لما كو عصبنا محل الله يعني قال لما مردك وكسو قرانا قال لما مردك وكسو قرانا يعني ما كان قالنا ما قال لما دي مردو أي لو قدام بيدي ومردو إسلامنا وفتح مكة ضد بدن إسلامنا وضدك كمدا وللمشركين ترى waxa u sugnaa jiray sidratul geed gobeeda oo yacquuna ay i'tikaafan cindaha agteeda shajarada i'tikaafan oo yaani ku nagaadaan xilli ku nagaanaya wayanutuna waxay suran jireen biha geedka aslixatahu hubkoodii suran jireen hubkii kala la jireen seefaha gashale oo sidada leh ay kala la jireen yuqaalu laha geedkaas waxa la jiray daatu anwaatina la jiray daatu anwaat وحلا ولا جيتكي وصاحبك هي سورشده وسيف سورشده فمررنا واحد صامرنا بسدرة جيت جبيدا صامرنا فقلنا واحد يا رسول الله رسولك لا يجعل لنا نويا ذات أنواط جيت أن جيت سيفاس سورنا إلى نبي إلهي ونصمي وأمبر كيسنا كما لهم ذات أنواط سيدا إياجا ويوسفنا كما لهم ذات أنواط سيدا إياجا وذات أنواط يوسفنا وجيت أي سيفاس سورتان إليه annagana geed aan seefaha suranno barakaysan oo sameeyay nabiga waa kadib عليه الصلاه والسلام wadooyinkii dadka hore ku taagantii wadi gaalada in la taqliidana sax maaha man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum nabiga عليه الصلاه والسلام gaalada in la taqliido lagu daydo oo wixii gaalada soo jirtay annaguna waa sameeynaa la yiraahdo wadabaadiyad way waana waxa ku dhigan yahay hadalkii nabi Muuse reer Israa'iil ay ku dhaheen ilaah noo sameeyay ku dhigan yahay nabi Muuse ilaah wuxuu ku yiri dadkiisii inakum qawmun tajhaluun adikuna sidoo kalaatin qawmun juhalaatin ما بنانا جيد إلا بركيستا ما بنانا إن سيفلو سوتا ما بنانا إن أيان لأجوغو بركيسي لبركيسا درتد ما بنانا ما بنانا النبي عليه الصلاة والسلام أريد أقول حاول بشوق ربا محلو شاهد وكرره حديث كوام حي حواي يا شيخة تنا براد محلو شاهد الحديث أو شوق وكرره حال لوكين حديث كان حوذي للوية أودي الويا باقي أن كتير محدود الويا حديث إني تيرين ضد جيلها عابدة وجيت كان لا أجل كارسية هاي وسيفها لو سرنا وأيام لا أجل شوجا ضمت لقليه وام حي وبركيس جيت كلا بركيسا وعبادة جيت كلا عابدة مركز ضد جيلها عابدة تيجي على كل صوب ضد جيلها عابدة هي ضد لك أنت عابدة iyo dad maaragtay caabudo qorraxda iyo bisha kuwa caabuda iyo kuwa saalixiin caabuda iyo kuwa anbiyo ilaahay caabuda iyo kuwa malaa'ig caabudo waa jiri jireen xilligii nabiga kaleey salaatu wasalaam dhamaantoodna gaalay ahaayeen hadarna cid walba oo saas ku sifowdaho ayaduna kufrigii ku dhacay gaalnimadii ku dhacay kala sooc waagaas aan dadka kala soocina hadda kala soocin maayaan waxaan marka hadda suurtagal ah in la yiraahdo hebel wuxuu caabudaa wali ilaahay caabudaa in loo daliishado waxyaabihi adilada ay ku soo arooray mushrikiintii carbeed oo shirkiga ka hadlayana sax maaha sababtu waa maxay mushrikiintii hore waxay ahaayeen kuwa asnaam iyo dhagxaan iyo geeda caabuda dadkaana waxa ay caabudayaan waa awliya ilaahay dad saalixiin ay dad fulana sax maaha farqigaas in dadkaas loo kala fadhiya sax maaha adoo marba dad ilaahay geerkii caabudo mushrigaata waxa ay caabudayaan wax fiican ha noqdeen ama wax xun ha noqdeen cibaadada dhan Allah iskala subhanahu wa ta'ala alla kaliis والله سبحانه وتعالى على وعلم بالله.